maanta hawsha inoo taala Soomaaliya sanadkan waqtigan joogno waa laba qodob qodobka koowaad oo maanta mudnaanta wasaaradda waxa weeye dhibaatada ka jirta gobolka Sool oo ahayd dhibaato aynaan filayn nasiib darrana ah dad nagaga dhintay badan dhaawacmay khasaare badan naga gaaray waa dhibaato aynaan filayn oo inagu timid maantana waxaan filayaa in qof walba ku fikirayo oo Soomaaliland darihi dhibaatadaas loo xalliyo muhiimada koowaad mudnaantkooda waa inaynu xallino dhibaatadaas caanood si nabad dawlad ahaan mar walba waxaan ku dhawaaqaynay xabad joojin dagaalkeena joojiye shuruudaan ciidamadana waxay iska xakameeyaan qarar ahaanna aynu nabad ka doono bilowgii ilaa halkii u dambeysay tiraba 3 jeer ayaan halka ballan qaaday xabad joojin shuruudaan alla ma qadarin dhibaatadu way taagan tahay maanta waxay la tahay waxa joogana loo taliyo nabadana laga wada shaqeeyo waana muuqataa saansaankii nabadda imika in loo dhiga nuur yahay waxaan codsanayaa Soomaaliland dhameeyay nabadda ugu gudubto sideen u aragnaa dhibaatada maanta xalkeedu inuu yahay halkaan u aragnaa waxa weeye arrintani waa arrin Soomaaliland gudaheeda waxa weeye gobol Soomaaliland kamid ah oo dadkooda iyo muwaadiniinta Soomaaliland oo wax ka tirsanaya dawladda waxay u baahan yihiin in loo fariisto la dhageysto dawlad ahaan diyaar baan u nahay wixii ku qaloocan laga saxo wixii laga qaldaman iska garaabo iyaguna waxay ka qaldaman ka garaabaan waana waxaan dhammaysan karno haddii Soomaaliland horena waa dhammaysan jiray qaar la mid oo badan bayna soo maray dagaal gudaheena oo badan oo sidoo kale la kala codayna soo maray كم دولار قاتي Somaliland باكليجد حلالتي يلا أولو تسوي من مير قبل فريستي وحق دارا ولا شيء قرابي داركنا وكل اسمه ما تو حوله هاي أريد أسوي Somaliland حيده عيد أنا قرش غير سنة نبض أما الدولة ما أوروه ولا غير دولة سيد عدو ترى سنة نبضه ولا كاشرنا هو نقول له إنه كل كهر لكن قبل أبوه والسوماليلاند ونحن دلوقتي كانوا عاونين وحنا نقولين ونعقول هاي إن ذاتك قاركي أما قايب كمية الصومالية وبطلاند قبل كراي إنه دجالك هي ترادا هي فرقين غير عادي الله صوغ الصور يسوق راعي هب قبلية تاسي صحمها أفريقيا أي حدث كي استعمارهم قيم صدي دنا وحي مودي أفريقيا ويهشيس كتاهي إن حدث كسودي هذا حدي كان أفريقيا إذا حد سوين كرميس حد كسومالي لأنه واقع عالمي مركا عيد كبدلي كرتا دي أفريقيا بلحريه أفريقيا تراكي استعمار كي نقدا يمو يعني أي نسكور أي ندي مقدمو يعني كريجت سومالي حد كذا لو أرن ما يجوني هالله فوقه شرع أفريقيا ما أقرأ كعقل ما أقرأ سومالي وقيم سنته قيم يوحى إلا نوشة إثيوبيا وحلا هذا وأقول له هاي حد كان دورنا وأنا كنت هندينا إسكاش ونكسنا وأنا كنت دورنا ولا يرين قيم كينيا وحلا هذا واقو احترامنا مدوا جبوتي عن فرب ودقيه أو حوذريه أو دليل ولا نبي كذريه واقو هم بلينا واقو حق دورنا Soomaaliya Puntland iyo Jubaland iyo South baxay koonfur galbeed iyo galmudug waa gobollo iyo maamul Soomaaliya waa ku hambareyna ku fargelinayno maamulka Puntland iyo dawladda Puntland ka tirsan Soomaaliya ka tirsan iyo madaxda Soomaaliya waxa leenahay war fargelinta ciidan leh kharash leh tala soo gurida leh xaq maaha kala baxa oo nabadgelyo oo dhamaystiran noo daay dawladda Itoobiya oo naga codsatay oo tii hadii ay dhibaato tahay walaaliin baan nahay la qabana wax nabad cid la qabso oo go'ay cid walba laakiin marka hore qaabka lagu dhisay nabad waa maxay waa arrin Soomaaliland dhexdeeda talaabo hore aanu qaadnay oo noo dhisan maanta cidda u hadlaysa Sool iyo la saarada arinteedu waa garaadada diyaar baan u nahay garaadaas si alliyasi iyo fagaraha doonayaan ee cid doonayaan bay lagu hadlo oo Soomaaliland oo dhammeey
كوغش هو ديسو قف على ولا المحاد ولسه معاه الضبي ما نصحنا waxa isxilqaamay oo arintan laga furtay oo imika u dhisan oo taagan madax dhaqameedkii Soomaaliland oo dhan oo anigu jiro raaso waa diyaar waa inaga wakiil waa iga wakiil wixina bada u helayo ee ay keenayaan diyaar baan u nahay haddii cid kale loo baahdo waa ku dareen marka waxaan doonayaa inaan qodobka cadeeyo inaan arintaas Soomaaliland ay koow inoo tahay inaan xarkada dhameeyo